daawadayaal mar kale habeen wanaagsan wararkii ugu dambeeyay ee naga soo gaaraya jiidaha hore ee magaalada Laascaanood iyo sidoo kale dagaaladii ay ku hoobteen ciidamada Soomaaliland iyo sidoo kale guutada toddobaad ee uu Mahad Cambaashe hogaamiyo iyo sidoo kale Tuulo Samakaab oo la dhaafiyay ciidamada Soomaaliland Farxadkiina ay goojacada dhinaca ka soo galeen. haddaba xogaha aan idin hayno waxaa kamid ah in dhabansaar ciidamada deegaanku ay 10 lama ilaawaan ah ay xasuusan doonaan taariikh loogu dhigay markaasi halkaasi. sidoo kale dhimasho badan ayay qaateen, kuwa kalena way ka yaaceen sida idinka cad muuqaalo halkan aan soo dhigin karin sabab la xiriira xuquuqda YouTube-ka oo aan galayn muuqaalo dhiigle. haddaba daawadayaal arrimahaas oo dhan muuqaalo ayaan idinka haynaa iyo sidoo kale guddiga markaasi uu hogaaminayo Falaalug oo iyaguna hadlay kuna nuuxnuuxsaday in Soomaaliland ay 10 u dhigi doonaan waxna aysan u aaba yeelin doonin. garaadka guud ee beesha dhulbahanto isaguna hadlay waxa uu cad ku maray in Soomaaliland ay u dhigi doonaan 10 laba ilaawaan ah. muuqaalo kooban aan ka soo ururinay dagaalada ayaan idin daawadsiinaya ee daawadsho wanaagsan. سكار ما شاء سكار سكار نوخوات جوانه عيدك كيف ترجع ماشي ولا جيلك هاديا بورتا سي سارايين ما انا وقم بروفو بار شنطه الصومالي دولي ساسا نكون انت كاسالك كيساك ملك واكن هلكا واكن يالا يو بس الاسلام روحيه بربريه كتبت الجوان ندو على الوسط طلبان حريصنا هوكودي سوق بحق لو غبي بس waa maxay saaqo weey sawiraan dina ala abiil وإذا قايل بكعين زاغوا واحد الله وإذا قايل بكعين كعرري أدعوني سنة بخت قاعد هذا ما ذو حس كعين لسان سوق جنينا وأنا قاعد هلقا كوكمني حتى أنا طبعا ذيك كسرنا ما ذو حس كعين لسان يا كورما ساكا كاسان كوكمني كا كاسان كوكمني يركع عيني يركع عيني ولا شيء يا لازم ما تكتب ما aad baa maasantiin waa kuwa ciidamada xaq dirka KCC shahaad bay ku jiraan si toos ah looga socotaan telefishinka caalamiga ee FOC TV caalad kasta oo soo korodhan nala socda موصو ciilkaaga waa ogeyn maanta waad soo bitaacday laakiin halkan wax guul aad ka gaaraysaa ma jirto ilaani qofka ugu dambeeya kaaga dhinto aadan ka tageyn insha Allah uu kaaga dhiman doonaa markaas aad tagi doontaa maanta gelinkii hore ama aroortii hore todobadii waxay jamhadda SNM ee cadawga ahi ay sidoodii caadada u ahayd dagaal weerar ah ay ka soo bilaabeen dhinaca bari ee magaalada muddo yar ka bacdiina waxay ka soo bilaabeen dhinaca waqooyiga labada meelood oo labadaba dagaal xoog li ka dhacay una xoog badnaa dhinaca bari oo ay doonayeen inay ka soo galaan magaalada si ay ciidoodii beenta ahayd ay ugu ciidaan magaalada ama qaybo kamid ah hindisahaasi wuu suurtagali waayay waxayna kala kulmeen jab iyo naasabeel bay kala kulmeen waxa loogu geystay dhibaato weyn oo dhimasho iyo dhaawac intaba leh
khasaare aan cidna koobi karin baa loo geystay waxaana lagu celiyay meelihii ay ka soo duuleen iyo kashishay baa la gaarsiiyay inta haddaan inta ka gudbo taantaas ay noqoto wixii maanta ka dhacay iyo xaaladdu say tahay haddeer oo aan joognana dagaal socda ama ma jiro iyagiina waa fogaadeen waxaan rabaa halkan inaan kelmad yar ka idhaahdo shirkii ama uu sameeyey Muuse Biixi uu ka hadlayay maanta wixii uu ugu sheegay xafladda ugu sheegay waxaan odhan lahaa amaanu leenahay haddaanu nahay bulshada SSC daawadayaal intaas ayaan kusoo gabagabeynaynaa wararkeennii caawa aan ka soo ururnay deegaanka garaadka guudna muuqaalka uu kaga hadlayo halkayaan dib u soo gelin doonaa isagoo ku nuuxnuuxsaday in Somaliland maalmaha soo socda iyo sidoo kale wiigaga soo socda 10 lama ilaa waana loo dhigi doono dagaalkan waxa uu noqday kii ugu qaraadhaa ee indhaweytaba aan ka dhicin deegaamada Somaliland waxay sheegtay in magaalada Laascaanood la wareegtay balse warkaasi been ayuu noqday oo ciidamada deegaanka ayaa hub kala duwan kaga gubay 10na waa loo dhigay wixii wareer ka soo kordhay warbaahinta Hogol News ayaan dib u soo gelin doonaa